dhisme casri ah oo si qurux badan loo dhisay kuna yaala bartamaha suuqa magaalada Hargeysa isla markaana laga hirgeliyay carwo cusub oo loogu magac daray Guleed Mall ayaa waxa maanta xariga ka jiray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Saylici oo ay wehelinayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland. xafladda xariga laga jiray Guleed Mall waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ganacsato ay qaarkood ka yimaadeen wadamada Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. macaamiil iyo marti sharaf ayaa iyaguna madasha ku sugnaa. ugu horeyntii waxaa faahfaahin ka bixinaya maamulaha carwada Guleed Mall adeegyada ay ugu talagaleen bulshada. waa mall saddex dabaq ka kooban, saddexda dabaq waxa lagu iibinayaa saddex wax oo kala duwan. xaggan aynu joognaa marka tusaale ahaan waa dabaqii ragga, waa dabaqa dhan waxa lagu iibinayaa labiska ragga yar iyo weynba. xagga hoose inagu xigto oo dabaqa koobaad noqonaysa waxa lagu iibinayaa kii dumarka, labiskii dumarka dhameystiran baa lagu iibinayaa. guriga ugu hooseeya asagu wacdar u dhigaya wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood. qaybta food staffki cuntooyinku ka kooban yahay, electronic buu ka kooban yahay, bulukaatiga dhinaca buu ka kooban yahay, perfumeski cadaradii dhinac soo raacinay buu ka kooban yahay, qaybtii creamiska iyo makeupkii dumarkii waxyaabaha ay ismarinayeen bay ka kooban yihiin. marka waxa la oran karaa waa sidii moolasha casriga. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici, wasiirka warfaafinta Cadaani, gudoomiyaha rugta ganacsiga, mulkiilaha carwada Cabdi Guleed ayaa dhamaantood waxay ka hadleen goobtaasi. sharafta uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ka soo qayb galayaasha nooga yimi golaha wasiirada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxa kale aan u mahadnaqayaa marti sharafta ganacsatada nooga timi wadamada dibadda sida Dubai Soomaaliya. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha ay ka mid yihiin saxaafaddu oo qurux kale oo qiimo gelinaysa Soomaaliland ay soo kordhiyeen ganacsatada Soomaaliland uu ka mid yahay Cabdi Guleed. waa ogsoontihiin oo aragtaano waa meherad standardkii caalamiga waafaqsan. oo u ducaynaynaa meheradda waxaan uga mahadnaqaynaa runtii aan hoosta ka calaamadinayaa. maalin dhaweyd baanu imo ilaa dhalinyaro 20 kor u dhaafsiisan ayaa shaqo ka helay reer Soomaaliland jaamacadda Soomaaliland ka soo baxay. waxaan kaloo ku hambalyeeynaa runtii haddii arrimaha dalkan haysta ee aynu u baahannahay Soomaaliland inay maal gashato jamhuuriyadda Soomaaliland dhulkeeda waxay faa'iido ka tahay shaqo abuurka iyo faa'iido u tahay ganacsadaha daada yar leh ee halkan wadankan oo waqtigan aynu wada garayno baabaasanaa raggii bilaabay ka mid ahaa maantana halka soo gaadhay inuu dhisto moolka quruxda badan runtii taasi waxaan aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa Guleed Mall halkan maanta uu soo gaadhay iyo shaqo abuurka uu samaynayo qofku markuu dadaalo. sidoo kale dadweynaha reer Hargeysa ayaa aad waxay u soo dhaweeyeen carwadan oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid adeegyadeedu ay dhameystiran yihiin isla markaana ay ka helayaan wax walba ay u baahdaan. waxyaalo badan oo aan dibadda ka raadsan jirayna aanu imika ka helnay oo dibadda laga keenay kuna yaalo masha Allah faras magaalihii aan u baahnayn in gaari loo raaco baska marka laga digo ayron la soo galayo. ilaahay maadaama maanta ay noqotay mall qaybo badan raggii dhalinyaradii ku dhaxay ku waaweynaa dumarkii gamboleydii qayb kasto ay tahayba qancinaysa.